يا مسلم يا عاوي مسلمين وسعاوية مسلمين توحن كوسان سعاوية نبكي استوى يا ريتان أبين مساعدة مع المساعدة كل يوم كذولا لا كاذين إنها كساتا مسلمين توحن كوسان بالبيجوان سعاوية ذي تيدي كشوان ولا ذي كلا مسلمين توحن كوسان سعاوية تليدون ملي جوان والله لا يعلم سعاوية دعوتك يا مقشة والمسلم لا حافظ القرآن مصيبة كل هذا مصيبة إلى ما كان أنكو قرأسا إلى يفسن وطلق وحاني قعد سنة إن حقيه لكتين إيسا قابسان السلام عليكم ورحمة الله زمان waxaan ka codsanaa dal iyo dibad cidda ku nool oo aritaan silcan kelidaan ka duleela xaarisada iga xiran beebi galaal dambe iga geliyeen meeshkaadii iga gooyeen dumarka gaaris wax waa lii qaban waaye qarash waa lii waaye waxay dhaheen takhtarkaada meeshan ma joogo marka muslimiinta dhammaan dal iyo dibad meeli joogaan waxaan ka codsanaa inay wax lii qabto walaalayaalo silacaan ku jiraa habeen ma seexdo maalin ma seexdo oo aragtaan caloosheeda sii tahay jeel ma qaato muslimiino dhib baa haysta dhibka laga soo caawiyo muslimiinta waxaan ka codsanaa sida ugu dhaqsiyo badan inay ii soo gaaraan inta dhiig naxaas inta muslimiinta ii naxayso muslimiinta waxaan ka codsanaa inay ii soo dhaqsadaan silacan ninka arkaa silacaan ku jiraa muslimiinta waxaan ka codsanaa inay soo caawiyaan inta imaqlayso iyo intaan imaqlayninba inta dal iyo diba joogto muslimiinta hadalkeega waxbaa kheeraysan muslimiinta muslimiina isoo caawiya dhibkaan ku jiraa laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah wiilkan aan la dhibaataysanahay war dhafoorba ku yaala dadna asagan ka naxaa ilaahay ka soo sokow haddii ilaahay yara gaaris baan u qaaday calooshiisa waxaan lagu sameeyey kaadidii baa la jaray xiidmihii baa la jaray nairobi baa loo dhigay wax baa loo qaban waayey walaalayaalow muslimiinta dal iyo dibad dadka ku nool ilmahaas lacagta lii qabsaday ee la yidhi ilmahan hadda ilaahay diidin daawadiisa laguma heli karo hindiya in la aadin in soomaali la aadin ma garanahayo lacag aan yareen baa la yidhi wiilkan muslim oo dhiig muslim ku yaalo oo wax dareemahayo inuu isoo caawiyaan dooni oo ilmahaas dilaahidaa meesha liigu qaadi karo liigu qaado walaalayaalow war ma hadli karayga aamusa wadnahaygooniga aamusa walaalow ma hadli dhibkaayo waad aragtiin walaal musliyaalo ninkan xaafid quraan buu ahaa waxaan laga rabaa inaad soo caawisiin dhibkaas inaad la kortiin inaad wax ka qabatiin muslimiinta waad aragtiin ninkan soo caawiya hooyadiis waa jajaban tahay asaga waa ka sinacan buu eegyahay walaalayaalo soo caawiya ninkan sidii wax loogu qaban lahaa oo wax loogu tirnaa muslimiinta walaalayaal soo caawiya ninkan waad aragtiin dhibka haysta rafaadka haysto dhibkan inuu ilaahay wax khayr qabo ku siiyo wiilkan aad arkaysaan dhinaca iga fadhiya waa walaalkay maamadan gadaasheeda fadhida waa hooyaday wiilkan waa la qaaday dhakhtar gaarisa waa la geeyey qalitaan baa lagu sameeyey qalitaankii laguma guuleysanin waxaa operation ku sameeyey dhakhtar aan u qalmin wiilkii waa la qaaday muddo markuu meesha ku dhibaataysnaa Nairobi baa la geeyey 3 bilood buu meesha yaalay wiilkii meeshii dhakhtar mar labaad waa la waayay waxaa la yidhi dhakhtar wadalka gudihiisa waxba loogama qaban karo ilaa wadan kale la geeyo oo dalka ka baxsan annagana waxaan ahay dadan yare ma awoodi karno inaan qarash aan ku qaadno oo wadan dalka gudihiisa dibadiisa ku geeyno wiilkii kalidaas uu ka xaaraya operationkii lagu sameeyay xididka saxarada matqaneysha banaanka loo soo bixiyay kaadi heystii waa la jaray oo gudihii bay kaadidii ku socotaa qaybna banaanka ay u soo baxaysaa waxa laga duleeyay matqana ay sheega dhabarka waan dhibaataysanahay ma ahaan xisanahantii waxaan ahay dad duruufaysan dadkan ka soo jeedna waa dad yare muslimiinta waxaan ka codsanaynaa meel walba ay joogaan
ilna xariis leh nagu fiiriyaan oo wiilkaas walaalkaan dhibaataysan ay dhibaatada nagala qayb qaataan oo ina caawiyaan ma awoodna hantiyaan ku qaadno ma awoodna hantiyaan dhakhtar ku geyno qarash ma haysano maal ma haysano waxaan nahay dad qaxootiye xiriyaha dhadhaab gaar ahaan ifan ku noolnahay walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaa meel walba joogaanba inayna soo caawiyaan oo wiilkaas dhakhtar nala geeyaan oo dhibaatada na haysato iyo dhibka na haysta ay wax nagala qayb qaataan walaalaha taasaan ka codsanaa weli dhibaatadan oo kale ma arkinba wiilkan dhibka haysta weli wiil inta la eego dhibkan haysta ma arkin wiilkan fiiri waxaa lagu leeyahay waxaan hadda waa kelida saxaradii baa ka socota kaadidii iyo saxaradii ibni aadamka loogu talagalay inay ka timaado meelaheedii waxay ka duraaraysaa kelida iyo dhabarka laa xawla walaa quwata illa billah waa xaalad aad u adag waa xaalad runtii ruux ibni aadam uusan u adkaysan karinba ilaahay baa badbaadada haysta laakiin inaan badbaadino innaga soomaalida ee muslimiinta ayaa laynaga rabaa fiiri walaalayaalo ilaahay baa idinku dhaariyay bal fiiri waxaad ruux walba ka soo qaadaa ilmahaagii oo kelida saxaradu ka socoto kaadii dhabarku ka socoto shilin aadan u haynin nin walba dareenkaas bal qiime seed noqon lahayd المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى نبينا حكوت المامي مسلمين يسو الامرين توضا يسو نحريس شدوضا hal jir keliya haddii lagaa qabto meel jirka intiisa kale qandho iyo soo jeed ba ugu yeeli xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam ee saxiixa ah ilaahay baan idinku dhaariyey haddaa adiga kelida ka xaari lahayd ka war ama dhabarka kaado ay kaa dureeri lahayd bilaahi calaykum ilaahay baan idinku dhaariyey nin walba qiime adiga oo dhibkaasi ku haysto xadiidka nabiga sooma rumaysnin walaalkeen wuxuu ka xarayaa kelida dhabarku ka kaajaya habeen ma seexdo maalinna ma seexdo waxaan idiin soo bandhigaynaa wiilkaas waa wiil yar oo xaafid alqur'aan ah oo kitaabka ilaahay shahaado ka qaatay kadib macaahidda islaamka ka mid dhiganahayo arday ahaa wiilkaas oo muddo 10 bilood yaallay ama xanuunsanaa wiilkaa oo kilidana ka saxaroodo kilida iyo feeraha dhabarka laba dhexdood haddana kaadidana ay ka socoto u baahan gacan midda waalidkiisana ka baxsan mid ehel ka baxsan oy tabar iyo taag u waayeen aad u tabaryar reer aad u tabaryar buu ka dhashay wiilkaas dalka gudihiisa waxba lagagama qaban karo waxaa sidan u galay baa ayaga ah waxbana way kaga qaban kari waayeen saas darteed muslimiinta waxaan si naxariis looga codsanaynaa ilaahay dartiis inay wiilkaa yar oo maaragtay miskiinka oo xaafidul qur'aanka ilaahay dartii ay u caawiyaan ilaahay dartii inay u caawiyaan oo calooshiisa ay banaanka taallo oo kaadihiisa ay dhabarka qulqulmayso ilaahay dartii inay u caawiyaan muslimiinta ilaahay dartii meel barakaysan baan ku jirna oo sadaqada la bixiyo sadaqooyin kale ay ka weynta ka shara ka qiimo badan tahay inaynu ilaahay dartii uga faa'iidaysan oo wiilka aan dhakhtar geyn oo ilintiisa aan tirtiro oo waalidiintiisa aan ilad ka tirtir ilaahay dartii aan ugu kaalmayn ilaahay dartii inaan ugu kaalmayn cidalaani cidda sawdkaayaga uu gaarayo oo codkaayaga maqalkaanaga iyo muuqaanagaba aragto inay wiilkaa ilaahay dartii ugu kaalmayso haysta dhibka laga soo caawiyo muslimiinta waxaan ka codsanaa sida ugu dhaqsiyo badan inay ii soo gaaraan inta dhiig naxaas inta muslimiinta ii naxayso ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala inuu ka abaaliyo inay ilaahay dartii ugu kaalmayaan ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan oo kale uu ka badbaadiyey asagana ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka uu ka saaro ka bixiy waxaan bannaanka yaalla ad arkaysaan waa saxaradiisa 24 saac markay ku dheganaato waa laga bixin tukala la gelin waa musqush saxarada la tuuray iyadoo buuxdo dushi waa saasi si la kaada way qulqul markay ibti yar ka timaado dhabarkan way ka qulqul
ilaahay dartii wiilkaan adoo u kaalmayno oo ilaahay dartii aan isugu taagno oo ilaahay dartii ilaahay ugu dhowaano oo ilaahay aan ku raali garayno yaana laga doonahayaa wallaahu fii cawni alcabd maa kaana alcabdu fii cawni akhiih qofka walaalkii intuu kaalmadiisa yahay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u kaalmaynaya ilaahay baa u gargaarahaya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u kaalmaynaya habeen iyo maalin wiilkaa habeen lagama seexdo maalin ma hergelo waa in yaroo markiisaa dhinac cabaad iyo hingirag buu bilaabay dhinaca loogu dhigo markaas ilaahay saa darteed ikhwaani waa akhwaati walaalaha sharafta badan waxaana si naxariis ilaahay darteeda kaga codsanaynaa wiilka inaad gacantiina usoo fidisaan oo ilaahay ha idin badbaadiye ilaahay subxaanahu wa tacaala ininka dartiin uu ku badbaado oo ilaahay baa wax badbaadiye ininka sabab aad u noqotaan allah subxaanahu wa tacaala oo kurbadiisa aad isku daydaan inaad wax ka faydaan walaalaha muslimiinta meelay jooga adduunka dacladiis dal iyo dibad yaan idin ka codsanaynaa ilaahayna ha idin barakay jalla wacala